maleeshiyada al-shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dowladda iyo huteelada muqdisho waxay inta badan soo xidhaan dirayska ciidanka haddii ay yihiin kuwa milatariga nabad sugidda iyo booliiska markii ugu dambeysay al-shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dowladda Soomaaliya waxay ahayd 23kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo markaasi oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada Muqdisho weerarka hore waxa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugidda weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshiyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar kontarool oo laga gala madaxtooyada markii uu haddaba soo dhammaaday howlgalka ee ciidamada amnigu ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab waxaa sawirada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen dirayskii ugu dambeeyey ee loo keenay ciidamada booliiska baaritaan ay samaysay idaacadda VOA waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobolada inay soo tira koobaan dhammaan dirayskii la siiyey sida ay ogaatay idaacadda VOA dhammaan gobolada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay maqnaansho 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyay ee la siiyo booliiska waxaa intaasi dheer oo VOA ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid ah saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23keedii sarkaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxaana uu sameeyay wixii awoodiisu gaarsiisneyd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka koonfur galbeed ani waa iska tiriyay tiradii ciidankaygana 10 ka maqanayday 10kiina generaal igu maay oo meeshan u sareeya u gudbiyay asigana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyay marka horena yaa kuu sheegay oo ku yiri intaasoo diraysa ku soo gaaraysa iska xisaabiyaa ku dhahay saas waxa yiri nin cornel oo alaabta soo dhiibay oo gobolka Bay ka tirsan aadan baadiyo liiraado Muqdisho joog in nin oo laba xidigla asana karaaniga qeybta ahaa oo isagana meelay meeshii joog alaabta soo qaadiya tiradaas soo gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku haray magaalada Muqdisho waxa uu siiyay magacyada laba ka mid ah saraakiisha koonfur galbeed oo uu yiri iyaga ayaa Muqdisho dharkan ka soo anba bixiyay labadaasi saraakiil mid ka mid ah waa Cornel Aadan Baariyo oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka koonfur galbeed kan kalena waa laba xidigle Cali Aadan oo la sheegay inuu Muqdisho u diray taliyaha booliiska koonfur galbeed si uu dharkaasi u soo gudoomo ugu horeyn waxaan la xiriiray Cornel Aadan Baariyo oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyay dharkaasi laba xidigle Cali Aadan ayaa baydhoo lagu soo diray taliyaha qaybta gobolka Bay oo booliiska oo ku gaashaanle sare Mahad Cabdiraxmaan Aadan liiraa oo soo dirsaday laba xidigle Cali Aadan alaabta soo qaada liiraa maadaama aniga sarkaalkaas aan ka sareeyo gaashaanle sare ka tirsan qaybta gobolka Bay nahay goobjoogan ka laakiin dharku waxa loo tiishay laba xidiglaas oo baydhoo lagu soo diray ma garan adu goobjoog maad ka ahayd markii loo tiriyay ha dhar miyaa maqnaa markaas dhar ma maqnayn antiyaani maxaa xisaabta gobolka oo loo ogolaayo waa loo tirtay taas goobjoogan ka ahay ma garan waa gartay laakiin saraakiishii oo Bay joogtay waan la hadalay iyo Baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay 10 labis iyadoo ka maqan tahay marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen markaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalinta dharka loo tiri sarkaalkaas maalin labaad hadda meesha tagnay markii uu dharku soo qaadanay aniga naftay waxa maqlay isagoo dharaa iga maqan saasuu yiri waa gartay dharaa iga maqan buu yiri marka aniga ma daba galin birkee sarkaalka maadaama qeybta Bay soo dirsadeen isugu mas'uulka ahaa dharka isuga loo tishay xisaabta isuga ahay maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saar lahayd dharka isuga ma igu yiri ma aha dharaa iga maqan marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga waa gartay marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo Generaal Mahad ma isugu keen yeeray ma la isweydiiyay arrinta maya ilaa hadda lagama wada hadlin maya lisma weydiinin dharkaas yani aniga dharka sarkaala la soo diray xisaabtu sida haayay aniga 100 soo qaad iyo 500 soo qaad iyo 1 milyan soo qaad ana maalaf shughul
sirkaalkii loo soo diray ayaa shaqo ku lahay usiga yani muxuu loo tirshay aniga haddii aan mas-uulka ahay dharka xisaabtiisa dhan aan qaadadi lahay ma garan waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle Cali Aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo waraysi faahfaahsan waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo waxaa kale oo laba xidigle Cali Aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taallaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa barnaamijkaasi waxba kama ogi ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaalaan arrintaas inaan ka hadlo ma doonayo haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim taliyaha booliiska ee magaalada Baydhabo su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii Febraayo 13 taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baaritaan wadaan welina aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale waxaase xogta aan ogaaday aan hordhigay taliyaha booliiska Soomaaliya Generaal Bashiir Cabdi Maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyay direyska booliiska xirnaayeen direyskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay waa baarisa socota kaas waa la baaraya waa arrin waa case file oo furan investigation waa socda is still going on waxaan maqlay marka taliya aan kula wadaagay waxaan maqlay in arrinta direyskaasi uu ka maqnaa direys loo diray booliiska koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ma jirta arrintaas investigation wax confirmation ma jira waa investigation waa la baaraya waxa haddaan la baarin wixii ka soo baxa lagu kordhac uma fiicna waa garta guddi waa maqan waa saraakiil loo diray waa la baaraya taas in dharkaas koonfurta galbeed ay ka maqan tahay taasna ma xaqiijisay ma la hubo waa la baar wax la baaray weydiinaysaa Haaruno waa la baaraya baaritaanku ay ka soo baxan ku camal faleena maleeshiyada al-shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23 bishii Febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof taasina waxay ka dhigan tahay in weli al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog oo haddii ay dhab tahay in 10 joog ee ka maqan ciidamada booliiska ee koonfur galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim caad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo tallaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyaa dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabi'inaya in nimankan dhaqanwadayaasha si fudud diriiska ciidamada dawladda Soomaaliya laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkaas shaqadiisa hadinimo iyo nidaam iyo meelaha karaamad in ku shaqeeyo nimankan dhawaatada wado diriiskan si fudud in ku gaarna kulli ugu sheegi lahaa ugu diila maxaa dhibo ka iman kara nimankaas haddii diriiska ciidanka ay mar walba helaan kulli kan hadda ku sameeyno oo kale u fududaanaysa shaqada dhawaatada iyaga wadana u fududaanaysa gaashaanle dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro intaasi ka sokowna waxa uu wali dawladda Soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 10 askari ee kamid ah ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 10 joog ee maqan waxaan waqti geliyay inaan la sheekaysto qaar kamid ah askarta dawladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaado labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xagjirka ah askartani ma aha kuwa loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi karo magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in direyska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xareynin joogii ka yaraaday dhawaan markii la qaybinayay direyska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay 2 joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo direyska ka yaraaday laakiin sarkaalka jooga saadka uu ku yiri soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan wali celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan direyskaasi dheeraadka ah gaashaanle sare Cabdi Ibraahim Shaamow Cabdi Dheere waa taliyaha booliiska gobolka Shabeellada Hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedeynin inuu direys ka maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo direys cusub aan laga xareynin direyskii hore
ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog baa mise waa laba joog qofkii mise wuu ka badan yihin sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey laba joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan ma arkin askari hal joog ka badan la siiyeyna maya ma arkin marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog maya 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaba askariga waxa weeye wuxuuna waa dhar waaye bariiskii maxay aaday halka la kaliya ma mid ma hore loo qaatay ajir maxay aaday waa laga yaabo 3 bilood ka hor in bariis qaatay iska bedeli karaa waa gartay marka direys cusub uu yimaado direyskii hore lama soo xareeyo ma uu heestaa askari uu heestaa waa siga bedelaa uu heestaa waxa kale oo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo kaliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas'uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dawladda mid kamid ah saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey direyska qaarkood aysan bahaysanin direyskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshiyada al-shabaab ee hadda ka hor weerar ka geystay hoteelo iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka militariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka Ceelwaaq, Beled Xaawo, Afgooye, Warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuhunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyadka al-shabaab